one got richer over the past year than Elon Musk. Musk is worth $219 billion this year, which is $68 billion more than he was worth a year ago, thanks to soaring Tesla stock. He is the second richest person in the world, with $171 billion to his name. After Bezos is Bernard Arnault, who's worth $158 billion, then Bill Gates. Assalamu alaikum daawadayaal. Muuqaalkeena maanta waxaan ku ogaan doonaa ninka kaalinta koowaad kala wareegay Elon Musk, billionaire-ka adduunka, balse hadda ah billionaire-ka labaad ee caalamka. Waa kuma ninka ugu taajirsan adduunka ee hadda boos ka qaatay Elon Musk. Elon Musk ayaa laga wareegay booska ugu sarreynta liiska dadka ugu hantida badan caalamka kadib markii uu sanadkan hoos u dhac weyn ka soo gaaray saamiga uu ku leeyahay shirkadda soo saarta gawaarida ku shaqeysa korontada ee Tesla. sida ugu muujiyay xogta majalada ka faalootay dhaqaalaha adduunka ee Forbes, Mr. Musk ayaa boos ka qaatay nin kale oo lagu magacaabo Bernard oo ah madaxa shirkadda hantida ugu qaalisan ee iibisa ee loo tagaasho magaceeda LVMH. Elon Musk qodiisu waa madaxa shirkadda Tesla ahna qofka saami ugu weyn ku leh dhaqaalaha shirkaddaas, waxaana la tibiyay in saamigiisu yahay 14% bishii October ayuu dhameystiray heshiiskii uu kula wareegay shirkadda baraha bulshada ee Twitter, taasoo uu ku iibiyay in ka badan $44 milyan. Sida ay shaacisay majalada Forbes, Elon Musk waxa uu hadda haystaa lacag dhan qiyaastii $178 bilyan oo u dhiganta 152 pound. Dhan kale, ninka hadda noqday qofka ugu hantida badan caalamka ee Bernard Arnault ayaa hantidiisa lagu qiyaasay inay tahay $188 bilyan. Haddaba waa kuma Bernard Arnault waxa uu boos ka dhigay Elon Musk waa ganacsade maalqabeen ah oo u dhashay dalka Faransiiska. Marka laga soo tago shirkadiisa, waxa uu iibiyaa sidoo kale ururiyaa farshaxanada qiimaha badan. Waxa uu dhashay 5 Maarso 1949. Haddaba ninkan Elon Musk waxa kala wareegay kaalinta koowaad ayuu kala wareegay. Ninkan waa nin Faransiis ah oo sameeyay ama shirkad maamulka ah oo sameeyay farshaxanka oo si gadana shirkad kale oo dhaqaalaha ka sameeyay IBC lahaa, waxaan loo soo gaabsaa LVMH loo soo gaabsaa. waxaa ka shaqeysaa qurxinta jifafka. qarniga 20aad ayay aad u soo caanbaxday kadib markii qarniga 19aad hoos u dhacday xoogaa asaga dhaqaale badan gashay. IBC markii hore wuxuu uga tagay marka asna shahaadada wataa, marka waa meeshan IBC lahaa, meeshii ayuu dhaqaale gashay oo wax geliyay oo habiyay. 14 bilood wuxuu ku soo gaaro Maleyna 110 milyan. awal 70 waxa ahayd 76 milyan bahayd 10 bilood ka bacdi markii alaab uu baahida said ahayd uu keenay ama sameeyay muddo 14 bilood waxay noqotay hantidiisii 110 milyan bay noqotay muddo 14 bilood ah. baahida loo qabo darteed wuxuu ka faa'iideystay Arnold xilli coronavirus xilligu jiray ayuu aad uga faa'iideystay ninkaas. Elon Musk khibrada kale dhaqaalaha ka faalootay waxay dhahaan Elon Musk waxa kaalinta koowaad in laga riixo sabab ahayd baa iibsada ku iibsaday 44 milyan Twitter. lacagtaas oo lacag aad u qaali ahayd baa marka heshiiskaas uu galay baa oo Twitter ku gatay ayaa u keenay in maanta booskan hoos macaan laga riixo oo boos u hooseeyo u taga macnaha. Teslana hoos ay u socotaa oo dhaqaalaheedii ayaa hadda hoos u dhacay. dadka badan waxa ku hayaan dhaqaalaha oo ka faalooda in macnaheedu la iska daayo ama laga takhaluso ayaa suurtagal ah sanadaha soo socda. bishii July ayuu heshiiska qaatay Twitter-ka oo heshiiskaas oo marka baxay marna uu ballan qaaday ugu dambeyn ayuu markii dambe ku khasbeen inuu iibsado Twitter-ka maadaama markii hore uu ahayd ballantu ahayd. maalgashiyaasha ayaa sidoo kale walwalsan inay ka saaraan baahida loo qabo gawaarida korontada ee ku shaqeysa shirkadda Tesla maadaama ay sii daciifso kuwa wax maalgashada macnaha shirkad kasta ilaa qof maalgashanay moogtaa dad maalgashanay ama shirkad kale maalgashanay ama billionaire maalgashanay, marka taasaa laga boqoyaa macnaha in ay hoos u dhac keento. marka Elon Musk waxa la yiri
waxaa ku keenay in macnaheedu kaalinta koowaad lagala wareego shirkadda Tesla oo saamigeedii uu kulaha hoos u dhacay oo macnaheedu si daciif xoogaa awoodiri xagga dhaqaalaha iyo lacagta qaaliga ahayd 44 bilyan oo ku gatay 44 milyan oo ku gatay Twitter-ka marka waxa la taas ayaa keenaysa inuu Elon Musk laga wareego sida ay ku soo wariyeen khibrad ka faaloota dhanka dhaqaalaha haddaba ninkan kale oo hadda kaalinta kala wareegay Elon Musk Parada Norton waa nin Faransiis ah nin shahaado haysta hantida uu hadda macnaheedu uu ku soo tabcay uu ku soo tartacbelay shirkadda Bezos ahayd saa lagu wareejiyay saa ka shaqeeyay ninkan da'diisa hadda waxa lagu qiyaasaa 63 ilaa 74 lagu qiyaasaa da'diisa waa in iska oday xogaa macnaheedu da noqoto laakiin saa soo aad u shaqeynaya Elon Musk hadda waa ninka labaad ugu taagsan marata mid Hindiya oo asna oo Hindiya ku nool oo Asian ugu qansana baa markaa inta la soo galay marka waa 2022 dhamaadkiisu waa inta 2023 dhicin waa hatta la soo sheegay Forbes oo shirkad oo ka ah website ka faalooda saa u jeedaan hadba ka faa soo jeedin second rich in the world macnaheedu waxa ka faaloota dhaqaalaha adduunka iyo bilyaneerada adduunka ka faaloota Elon Musk hadda waa 198 odagan kale hadda meesha ka qaadina bixna dhaxana hantiis waxa lagu qaataa 188 bilyan marka waa farqi u dhaxeeya Elon Musk waxa ku keenay in kaanta loo wareegto Twitter iyo shirkadda ku laha dhaqaalaha Tesla oo daciifaysa hoos u dhacaysa macnaha zaami ugu badan asaa ku Tesla madax sarana asaa ka Tesla haddaba muuqaalkeena maantana inta si uu ku yahay. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.